Bismillaah, assalaamu calaykum. Waa walaashiin oo mar kale idin sidaa hadallo wanaagsan oo qiimo leh oo wax kaa bedeli kara. Waxaa maanta noogu soconayaa hadduu Ilaahay inoo roon yahay oo ku saabsan jacaylka. Inuu qofka bini'aadanka isku daaweeyo jacayl. Jacaylku horta sidiisaba wax la taaban karo ma aha, waa dareen. Jacaylkana sidiisa waa fara badan yahay, ma aha kaliya jacaylka inuu nin iyo naag yahay. Jacaylka sidiisaba wuxuu kasoo bilaabmay hooyadii iyo aabihii ku dhalay kow, dadkii kula dhashay, dadkay sii dhaleen, dadka adiga dhashay, dhammaan oo dhan in la wada jeclaadaa oo la is jeclaadaa. In deriska la jeclaadaa, in dadka kula shaqeeya la jeclaadaa, hadday ku neceb yihiin xataa la jeclaadaa, dadka oo dhan hadday ku neceb yihiin la jeclaadaa. Maxay taraysaa ayaa maanta ku soconaynaa sideedaba jacaylka waa badan yahay. Waxaa ku soconayaa maanta wax yar idinka tusinaya jacaylka in aad maanta oo dhan qalbadaada nacayb u diidid. Ruux bini'aadan san ku neefle adduunka ugu xun oo adiga ku neceb ku dhibaateeya xataa inaadan nicin. Maxaa yeelay wadnahaaga haddaa nacayb gelisid jacaylka ayaa ka baxayo. Marka wadnahaaga si uu jacaylka uga bixin waa in aad nacaybka ka ilaalisaa. Waa cudur nacaybka. Marba haddaa wax nacaysid waana necbanay dhehaysid wadnahaaga jacayl kuma jiro mana gali karo. Sideeda jacaylku waa caafimaad, waa cimri dhirir, waa nabadgelyada nafsadaada, waa raaxo, waa guusha adduuniya aakhiro, waa nabadgelyo oo adduuniya aakhiraba. Jacaylka marka sidiisaba waxa koowaad aan jeclaanaysi waa inuu ahaadaa maasha Allah. Allah subxaanahu wa ta'ala Allah kariim subxaanallah Allahayna qaadir raxmaanka qafuur raxiimka maalikal mulki dhul jalaal wal ikraam. Ilaahay iyaa si dhab u jeclaanaysaa. Ilaahay markaa jeclaatay nabigaaga Maxamed calayhi salaatu wasalaam, nabigeena Maxamed jeclaatid. Qofka markuu Allah iyo rasuulkiisa jeclaadaa uu qalbigiisa ka buuxiyaa Allah iyo rasuulkiisa jacaylkooda waxaa ku xigta nafsadiisa. Qofka kasta oo bini'aadan oo nafsadiisa jeclayna qofna ma jeclaan karo. Maxaa yeelay nafsadaada mar walba haddaad dayacaysi qof kale, ilmahaaga ha ahaado, ninkaaga ha ahaado, walaalahaaga, hooyada, aabaha uma dayici kartid nafsadaada. Maxaa yeelay nafsadaada waa kow. Haddii kale tiisa daryeela tu kale ku dara iyo Soomaalida waa hore tiri. Tiisa daryeela ayaa tu kale ku dara. Marka ha ku barbaarin ilmahaaga inay adiga ka hormariyaan nafsadooda adiga ku hormariyaan. Inaa mid kale walaalkiisa uu hormariyo uu asaga wixiisa dayaco ha ku barbaarinin. Haddii kale biri kamaale uu dayacmanayaa. Markuu dayacmane dhib fara badan ayaa halkaas ka soo baxaya. Dhibkaas farada badan nafsadiisa ayay ku dhacaysaa. Naftiisa ayaa khasaaro ku dhacayso. Uu dayacmanayaa. Wiligiisana haddaa dhashay ilmahaas wilig war wuxuu rabaa aada adiga kulama joogi doono. Adduunyadu waa inuu iska celiyaa. Mar walbana wuxuu u malayn doonaa in dadka kale la hormariyo. Intiisa uu meel dhigo uu tu kala uu daryeelo inay tahay. Inuu waajib ka saaran tahay inuu dadka kale tooda hadduusan xalin tiisa xalin karin. Marka culayska garbahaaga ka qaad adigana haddaa sidaas tahay ilmahaagana ka qaad. Qof kastoo bini'aadanna ha ku xadibin inuu adiga ku nool yahay ama uu adiga ku hormariyo. Qofna ha u ogolaanin, qofnana ha ku qalqaalinin, qofnana ha ku riixin, qofnana ha ku colaadinin, qofnana ha ugula diririn. Oo ha dhihin taada raacatay oo teeda ka tagtay. Maxaa yeelay tiisa ayaa kow markuu tiisa daryeele tu kale ku daraya la dhahay. Marka jacaylka daawadeedan ku soconaynaa. Jacaylka waxa laga qaadaa markuu qofka Allah jeclaado kalsoonidiisa ayaa kor u kacayso. Qofku waa inuu Ilaah si dhab u jeclaada iyo rasuulkii nabigeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam. Nafsadiisa jeclaada. Kadib waalidkiisa jeclaada, walaalihiisa jeclaada, qof kasta jeclaada, deriska jeclaada. Ilmaha yaryarka waa inaad ku beerin nacayb. Waxaas nac iyo yeel ilmaha wiligaaga ha dhihin colaad iyo nacayb ha barin. Haddii kale adigu kugula soo noqonaya. Ilmaha wadnahooda waa laga ilaaliyaa nacaybka. Adna wadnahaaga ka ilaali nacaybka ilan waa sun. Aashito iyo caano meel ma isla galayaan? Maya, aashitada iyo caanaha meel isla galaan. Caanahaas ma cabi kartid. Jacayl sun ku buufmatayne qof cabi karo oo wax ku samaysan karo male.
suntaas waa la daadinayaa caanahaas. Marka jacaylka waxa waaye sidii ubixi camal aa la abuuraa, waa la waraabiyaa, waana laga wada cunaa miro macaan. Waxaana cunayo adiga iyo dhammaan adaa abuuratay, adaa ka dhargaayo, adigaana la cunaysid dadka oo dhan ayaa gaarsiinaysaa. Waa miro macaan. Miro macaan qofkii abuurta asaga markuu cuno intuu ka cuni karo ka cuno, dadkana uu gaarsiinaa ilaa darisba. Marka jacaylka ku beer qalbadaada, wax badan ka shaqeey jacaylka, adiga dhan noqo jacayl soconayo. Qofkii ku neceb iyo qofkan ku jecelba isku mid ka dhigo oo wada wanaaji. Kala garan laakiin dadka ha isku qasin oo noqo qof garaad meel sare leh oo kala garan kara dadka. Waxa kaloo laga rabaa in aad ahaatid qof mar walba Allah u noqonayo, dadkana u turaayo, dadkana garanayo tabartooda. Intaas ayay ka ahaatay, Allah ayaana u qadaray. Qadar Allah ayaa ku dhacay ayaga inay naceebka doortaan. Ha ku digleen qofkii naceeb doorto, waxa dhahda waa adigay ku tahay, aniga ha igu daaran cudurkaas. Iga ilaali, qofna ma necbani, waana ka soo horjeedaa naceebka. Nabadgelyadaan jeclahay, jacaylkaan faafiyaa. Waan cirib tiraa colaada, waa cirib tiraa naceebka. Waxaana badbaadiyaa ubaxyada quruxda badan ee qalbigayga ku abuuramayo. Qalbigayga ayaan quudiyaa, quraankaan ku quudiyaa, waxaana ku dadaalaa qofba in uusan necbanaanin qalbigayga. Quudi qalbadaada, jeclo walaah, jeclo nabigaaga Maxamed calayhi salaatu wasalaam, nafsadaada, waalidkaaga, dhammaan walaalahaaga, ehel iyo qaraababa, dad walbaba iyo dhammaan reexididba wada jeclo, waa guulaysanaysaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.